Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal waa qaybtii labaad ee filimkii The Great Wall. Waxaan kaga mahadcelinayaa qaybtii ka horeysay si aad muuqaalka laagta ugu roonaateen, balse muuqaalkan laagta ugu roonaada asagana waa kana filimka daawada taxadirkiina ha bato. Halkan ayay ka bilaabanaysaa qaybtii labaad ee filimka. Markan waa markii casuumaadda loo fidinayay William, balse markii uu casuumaadda loo fidiyo oo waxyaalo fara badan uu uga sheekay boqoradda, ayaduna boqoradda waa ku farxaysaa maadaama uu tiimkeeda kusoo biiray. Isaga iyo saaxiibkiis si hoose ay iskula hadlayaan, balse ninka la yiraahdo William waa lagu wacayaa, waxaa lagu yeerayaa qasriga qaybta kore ayaa lagu wacayaa, waxaa leeyahay soo bax oo halkan imow, waxaa la rabaa inaad tusto awooddaada iyo kartida dheeraadka ah. Wuxuu leeyahay meesha aniga aqoon fara badan uma lihi ee meeshan ha laga daayo nimanyow, balse waxay leedahay aqoontaadana tus. waxaa la geynayaa meel dheer, taalooyin dheer ayaa korka laga saaraya. waxaa leeyahay meeshan ayaa la rabaa inaad ka boodid. kadib markuu meesha korkeeda uu fuulo, waxay loo jeedsiinayaa hoostooda, waxaa laga tusayaa in bahladii la laayay dhammaantood ayuu arkaya, balse meeshan wuu ka baqaya. wuxuu leeyahay meesha aniga kuma jiro. halka saaxiibiisna ay sameynayaan baaruddii madoobeed, ay ka sameynayaan tusaale fara badan, balse waxay leeyihiin tani waa baaruddii madoobeed, waxaana u baahannahay inaan baarudda madow aan qaadano kadibna meeshan aan ka baxsano. balse ciidankii waxaa soo weeraraya bahallada ayaa soo weeraraya ayagoo meesha ku sheekaysanaya. ciidanka dhammaana way isdiyaar garanayaan. waxaa loo yeerayaa ciidamada fara badan ayaa boqorka u yeelaya. wuxuu leeyahay dhammaantiin isku imaada, gaashaamadiina iyo gawaramadiina soo qaata. boqorka ayaa u dhex maraya, balse bahalka ayaa soo boodaya. bahalku mar allaala markuu soo boodo waxaa lagu dilaya falaaro ayay afka ka gelinayaan. marka allaala marka falaaro afka geliyaan, balse boqorkii ayuu bahalkii cunayaa oo boqorkii ayaa halkaas wax kusoo gaaraya dhaawac. kadib boqorka waa lasoo qaadaya, meel cidla ayaa la dhigayaa. wuxuu leeyahay aniga intaan ayay nafti iga baxday. saldanada iyo xilka wuxuu ku wareejinayaa boqoradda kale Lee ayuu ku wareejinayaa, balse xilka waxaa qabanaysaa Lee. kadibna aas qaran ayaa loo sameynayaa ninkii boqorkii, halkaasna ayaa lagu soo aasayaa boqorkii. kadib waxaa la sameynayaa maandooriye ayaa laga qasayaa iyo baarud iyo waxyaalo fara badan ayaa la isku darayaa. kadibna waxaa lagu sameynayaa in waramada afka looga daadaadiyo si bahaladu mataqaana markii ay mudaan ay bahaladu u samoodaan, kadibna si degdeg ay bahaladu ku dhintaan. markii bahalada la sameeyo waxaa leeyahay hala diyaariyo waramada, kadib waxaa la rabaa in lagu tuuro baasha. ninka William ahaana asagoo hawshan banaanka ayuu ka yahay, meel cidlaha ayuu iska fadhiyaa. kadib waxaa la diyaarinayaa bahaladii dhammaad ayaa soo farabaxsanaya, bahaladiina waa is diyaar garanayaan. kadib dhammaantood waramada iyo waxa dhan inta la diyaariyo ayaa waxaa lagu fasaxayaa bahalada ayaa lagu fasaxayaa. ciidankii kalena u diyaargaraysan ayagona qabashada bahalada ayaa lagu fasaxayaa, balse William meel gidaar ayuu iska gelayaa, asagoo waxaan waxba kama oga. asxaabtii kalena waxay ku guda jiraan inay soo helaan baaruddii madoobeed ayay ku guda jiraan. saaxiibkoodna waxay leeyihiin aniga kuma jirno. falaarihii wixii dhammaa ayaa lagu fasaxayaa, balse bahalka weynaa ayay qabanayaan. markaas bahalka weyn markii ay falaar ku dhuftaan waa soo jiidi weeyaan asxaabta kale. markii jiidi weyn sirtada ay jiidi weyso, kadib waxaa soo boodaya William. wuxuu leeyahay William meeshan joojiya, waxaa laga yaabaa inay silsilada soo jiidi weyso, kadibna silsilada ay ka go'do, halkaasna bahalka uu ka baxsado. waxaa lagu tuurayaa holac iyo baaruud ayaa lagu firdhinaya bahalada, balse bahaladii way dhaawac fara badan ayaa gaaraya. balse William ayaa isku tuuraya godkii markii bahalada kale ay baaba'aan si uu usoo qabto bahalka kale. bahalka kale markuu jirada godka ugu tago wuxuu baaq u dirayaa asxaabtii kale ayuu baaq u dirayaa. bahalka ayuu silsilada lugta markuu ugu xiro wuxuu leeyahay bahalka kor u jiida ayuu leeyahay si mataqaanaa bahalada kale loo qabto. bahalada kale ayaa isku dayaya, balse saaxiibkiis ayuu wax ku arkaya si lama filaana. markaan asay saaxiibkiis garbaha ay istaagiyiin. markaan kadib way iskaashanayaan, ayagoo meesha taagtaagan ayay garabkooda wax ka arkayaan bahalada soo ordaya, balse inta iskaashadaan ayay falaara ku dilayaan bahalkii. ayagoo bahaladii la dagaalamaya oo wax war ay hayn ayaa bahalka kale waxaa leeyahay kor loo jiido. baarud fara badan ayaa la keenayaa, balse saa waqtigii baarudda ayaa dhammaanaya. baarudda ayaa meesha ku qarxaysaa. markay baarudda soo tuuran kadib baaruddii waa qarxaysaa. dhammaantood ninkii William ahaa dhaawac ay soo gaaraya, waa la soo qaadaya, waxaa la keenayaa qasriga ayaa la keenaya. kadib dhabarka ay wax ka soo gaaraya dhaawac, balse boqorada waxay leedahay nin wanaagsan ayaa tahay maadaama uu shaqo fara badan u qabtay. bahalkii markii la soo qabtay waxaa lagu ridayaa shabaq weyn ayaa lagu ridayaa, magnetkii ayay gees uga qabanayaan maadaama magnetka haddii lagu qabto bahalka tabar yeelan maayo. kadib waa la qaadaya, waxaa loo geynayaa boqorka weyne ayaa loo geynayaa. jeedkana waxaa ku sugaysa waxyaalo fara badan. William wuxuu u tegayaa asxaabtiisa kale, wuxuu leeyahay maxaa meesha ku sameynaysiin, idinku ma baxsan kartiin uu leeyahay, balse aniga dadkan ayaan garab siinayaa. isaga saaxiibkiisa ayaa isqabsanaya ilaa uu midada uu qoorta ka saaro. ayuu leeyahay meesha aniga ma ka baxsanayo, dadkan ayaan garab siinayaa, idinkan meeshiina jooga. balse ninka la yidhaha Qays iyo labadooda waa tashanayaan si ay u tagaan. asxaabtii kalena waa baxayaan, iyaguna waxay rabaan inay baarudda u doomarayaan oo baarudda ay la baxaan. waxay imaanayaan godkii baarudda ayay imaanayaan, balse baaruddii ayay la baxayaan qaar, kadib waa baxayaan. asxaabtii kalena godkii dheeraa ayay alaabta usoo qaadayaan. nimankaana markay soo baxaan alaabtii ayay alla jawaanada ku gurtaan ayay la baxayaan, waa iskala tegayaan.
asxaabtii kalena halkan ayay joogaan waxay rabaan si bahalkan ay u geeyaan boqorka meeshan ayay tala ku qaadanayaan kadib waxay u geynayaan boqorkii weynaa ayay u geynayaan alaabta balse boqorkii arrintan waa ku farxayaa si ay u keenaan bahalkan kadib ninkii William ayaa laga shakinayaa ilaa saaxiibadiis ayaa qaatay baarudii halkan ayaa la keenayaa balse boqorada ayaa u dhaaranaysa haddii ay ku soo cadaato waan ku dilaya ayay leedahay mid shaqaalaha ka mid ah ayaa ka dabeynaa wuxuu leeyahay ninka asagu ma qaadin saaxiibadiis ayaa qaaday halkaas iyo ninkii William ayuu ku badbaadiyaa balse asxaabtii kale labada nin way soo qaadanayaan waxay imaanayaan meel saxara ah wuxuu leeyahay saaxiibkii banaanka fiiri balse ninkan qorshe kale ayuu wataa ninkan Tokyo waxa warka ma hayo mar alla markuu tago laba fardood ayuu qaxaysanayaa balse saaxiibkiisu wuxuu leeyahay war maxaa ku dhacay macaamiisha iga tagtay markii boqorka loo keena bahalka magnetka ayuu ka fujinayaa asagoo waxba ogeyn ayaa bahalkii ooda soo goosanayaa caradaran ayuu jabinayaa wuxuu u yeerayaa bahaladii kale oo ka fogeyn ayuu yeerayaa balse bahalada dhammaantood ayaa soo yaacaya magaalka ayay geesan ka marayaan balse boqorkii ayaa ku tuuraya magnetkii markuu magnet ku tuuro bahalkaas uu hakanaya ninkii qays ah oo bahalada qaatay waxa qabanaya nima cawaandiya oo baaradu waxay tahay aan aqoon ayaa faraha ku dhigaya balse waxay ku ridaan dab ayay ku ridaan dabkii markii ay ku ridaan saas ay ku qarxayaan saaxiibkiis Tokyo ayaa qaylada maqlaya kadib dhankooda ayuu soo aadaya balse bahaladii ayaa weerar ku soo qaadaya asxaabtii boqortii meesha joogay dhammaantood waxay ku qaadayaan dagaal balse marka waxa gacan galaya boqoradii waxaana ka badbaadinaya William ayaa ka badbaadinaya markaas baarud ayay ku fardhinaya si ay ka badbaadiyaan balse boqorkii waxa loo keenaya gacanka saldanada balse ninkii Tokyo ilaa hadda wax warar kama haya ninkii Tokyo fardiisa ay isku sii wataa wax warar kama haya ilaa hadda in caradii la soo weeraray dhanka kale bahalkan ta qabtaan ayay korka baarud uga xirayaan dhammaantoodna hilibna way raacsinayaan markaas waxay isu wadayaan dhankaasi meeshii ay u raacsin lahaayeen baalka ay ku sameyn lahaayeen markii allaala markii baalka ay soo qaadaan waxay ku soo qaadayaan bahal birweyn ay ku soo qaadeen iyagoo soo wada ayaa wax soo weeraraya baaladii balse waxay ka dhaawacmayaan in asxaabta kamid ah dhaawacmaya balse askarigii uu ka ogolanayaa waxay sameynayaan bahalkii inta qabtaan ayay wixii gesa ugu xirayaan baarud kadibna hilibka ay siinayaan kadibna waxay sameynayaan inay bahalka magnetka ay ka fujiyaan mar alla markii magnetka ka fujiyaan bahal kale ayaa ku soo ordaya balse ninkii askariga ayaa qaraxta isku xiro ayuu isku aadinaya markaas kadibna markuu qarax isku xiro bahalkii iyo wixii dhama way isla qarxayaan halkaasna ayaa bahalka ku dilmaya kadib magnetka ay ka fujinayaan markii alla markii magnetka ka fujiyaan bahalkii inaha ayuu soo kala qaadaya xaggooda ayuu soo aadaya kadib bahalka markuu xaggooda soo aado aalal ayay uga dhumanayaan balse bahalka hilibka inta cuno ayuu iska wuxuu dhex gelayaa boqoradii iyo ciidanka dhammaa oo bahaladii ayuu dhex tegayaa asagoo baarud dhabarka uga xirxiran tahay ayuu dhex gelayaa iyaga ujeedkana wax kale maahan markuu dhex tago kuwaasna ayay baarudda ku qarxinayaan dhammaantood marka isku shabawaan bahalkiina ay wixii ku xiran yihiin ayay hal fallaar oo dab leh ay dhex dhigayaan balse qarax ayaa meesha ka dhalanaya bahaladii waxyaalo fara badan ayaa ka baaba'aya markaas iyaga dhan boqorkii ayay ilaalinayaan geesaha ayay ka marayaan balse qarax weyn ayaa ka dhex dhacaya halkaasna wax ku baaba'aya bahaladii dhammaantood balse ugu dambeyn way guulaysanayaan ninkii William ahaana wuu iska soo baxayaa wuxuu soo gabayaa saaxiibkiis Tokyo markuu guriga yimaado wuxuu arkayaa ninkii Tokyo oo xirxiran oo ciidankii ay ku soo qabteen baarudii oo xaday wuxuu leeyahay maxaa hadalkii u qaaday soo dhahay hadalkii ma ka shalayday wuxuu leeyahay niyo meesha ay badbaadi balse ninkii William waxaas ma fiirinayo meesha ay ku badbaadinayaa kadib labadoodii way soo raacayaan waxay u tagayaan boqorada laakiinse boqoradu way mad celinaysaa waxay leedahay wax badan ayaan sugaynaa rag sidoo kale geesiyaal u ah balse maanta waa inay helay guushana waana siisan wax badan ayay mad celinaysaa balse ninkii William iyo Tokyo way soo baxayaan waxay soo aadayaan dhankaas iyo magaalooyinkoodii ay iska soo aadayaan filimkan halkan ay ku eegay asxaabay muuqaalkan like saara wixii fikrada ama commentiga nagula soo wadaaga qaybta hoose ee commentiga